Ey Ermeniler, varsa arşiviniz siz de açın. Tüm dünya, üçüncü ülkeler, varsa arşivlerinizi açın. khilaaf weyn ayaa ka dhex dhashay dalalka Maraykanka iyo Turkiga kadib markii madaxweynaha Maraykanku Biden uu xasuuq u aqoonsaday dagaalkii dhex maray boqortooyadii Cismaaniyiinta iyo Armenia xilligii dagaalkii koowaad ee adduunka. bayaanka madaxweyne Biden ayaa u qornaa sidan: sanad kasta maanta oo kale waxaan xasuusanaa dhammaan dadkii ku dhintay xasuuqii xilligii Cismaaniyiinta ee Armenia. waxaan dib isugu xasuusinaynaa dhacdadan in aan ka hortagno sidii aanu mar kale xasuuqaasi oo kale uga dhici lahayn dunida. dadka Maraykanku waxa ay sharfayaan dhammaan dadka Armenia ee ku halaagmay xasuuqii bilowday 106 sano ka hor maanta. But I also wish to say that we have to consider that Armenians also killed Turks and Kurds. العديد من المؤرخين يقرون بأن أرمينيين ماتوا، لكن ذلك لم يكن مذبحة كما يتم تصوير الأمر من خلال الغرب والإعلام. dowladda Turkiga ayaa arrintan aad uga xumaatay waxayna u yeertay safiirkeedii uu joogay Maraykanka. waxayna dowladda Turkigu go'aanka madaxweyne Biden ay ku sheegeen inuu aqbalay oo qaatay tarjumaadda khaldan ee ay dowladaha Armenia, Faransa, Germany, Russia iyo dalal kale oo dhowr ah ay ka bixiyaan dhacdooyinkii dagaalka ee dhacay xilligii dagaalkii koowaad ee adduunka. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo u jawaabaya madaxweyne Biden ayaa waxa uu yiri sidan: erayadu ma bedeli karaan, dibna uma qori karaan taariikhda. cidna kama qaadanayno casharo ku saabsan taariikhdeena. bayaanka Biden ee ku saabsanaa dhacdooyinkii 1915 wuxuu ahaa mid aan sal lahayn. madaxweyne Biden inuu xasuuq ku tilmaamo dhacdooyinkii 1915 waxa ku cadaadiyay Armeniyiinta xag jirka ah iyo kooxo cadow ku ah Turkiga. bayaanka madaxweyne Biden dhaawac weyn ayuu gaarsiiyey xiriir ay adag tahay in dib loo soo hagaajiyo. madaxweyne Biden wuxuu adeegsaday weero aan cadaalad ahayn oo aan sal iyo raadna lahayn, kuwaasoo ka hor imanaya xaqiiqooyinka ku saabsan dhacdooyinkii 1915. haddii aad xasuuq ka hadlayso waa inaad dib u fiirisaa oo aad naftiina xisaabisaan waxa aad samayseen. boqortooyadii Cismaaniyiintu ma dilin dad maata ah, xasuuq uma geysan, ma ay dhibaatayn sida dhaqanka Islaamku yahay. xilligii Cismaaniyiinta in ka badan 300,000 oo Armenian ah ayaa ku noolaa Turkiga iyo meelaha kale ee boqortooyadii Cismaaniyiintu ay ka talinaysay. weliba xilligaas qofkii raba inuu ka tago meelaha dowladda Cismaaniyiintu ay ka talinaysay waxay dowladda Cismaaniyiintu u ogolaatay xilliga inay u guuri karaan meeshay rabaan. taariikhdu waa mid qoran oo aan la khaldi karin. maantana in ka badan 100,000 oo Armenian ah ayaa ku nool magaalada Istanbul oo kaliya. dalka Armenia meesha uu maanta ku yaalo qarni ka hor dadka halkaas ku noolaa 80% waxay ahaayeen muslimiin, laakiin maanta hal qof oo muslim ah kuma noola dhulka Armenia. muslimiintii tirada badnaa ee Armenia ku noolaa halka ay ku dambeeyeen iyo waxa ku dhacay madaxweyne Joe Biden ha nooga soo jawaabo. kadib markii dowladda Turkiga uu cambaareen weyn kala kulmay baaqa madaxweyne Biden uu xasuuq ugu aqoonsaday dhacdooyinkii 1915 dhacay. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa garwaaqsaday inuu xaaladda qaboojiyo, wuxuuna khadka taleefanka uu kula soo hadlay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan.